golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa kulankoodii caadiga ah ku ansixiyay magacaawista taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Enisa Mahad Maxamed Salaad kaasoo saacadii la soo dhaafayay si weyn loo hadlayay in loo magacaabi doono xilkaasi. Mahad Maxamed Salaad ayaa ka mid ahaa dadka si weyn u dhili jiray hay'addan iyo shaqada ay qabato 3 sano ee u dambeysay oo xilka hayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir korinta aan laga qaadin oo si kumeel gaar ah looga magacaabin Yaasiin Farey. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka mid ah shakhsiyaadka si weyn loogu saadaalinayay toddobaadkan magacaabidda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Enisa waxa uu ka mid yahay saaxiibada dhow ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana wuxuu si aada 5 sano la soo dhaafay lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa mucaaradkii si weyn ugu soo horjeeday siyaasadda dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Farmaajo isagoo ka mid noqday xildhibaano loo diiday inay xaadiraan kala fadhigii baarlamaanka xilligaasi oo lagu eedeeyay inuu jabiyay xeer hoosaadkii golaha shacabka ee baarlamaankii 10aad. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Enisa ayaa isbedel weyn waxa ku sameeyay agaasimihii hore Enisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xilkaas laga qaaday bishii September ee sanadkii tagay ee 2021 kadib markii ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta isku qabteen dilka kiiskii sargaaladii Grant Tahliil Faarax oo ka mid yahay sirdoonka Soomaaliya taasoo lagu eedeeyay inay ku baxday gacantii hay'addii ay ka howlgalaysay. agaasimaha magacaaban Mahad Maxamed Salaad ayaa ka mid ahaa dadka sida weyn u dhaliili jiray agaasimihii hore xilka laga qaaday hay'adda Enisa inay qabtaan shaqooyin ka baxsan awoodooda sida dilal qorsheysan, caburin, badalida maamul goboleedyada iyo waxyaabo kale. tani markii Fahad Yaasiin xilka laga qaaday waxa hoggaanka hay'adda si kumeel gaar u hayay Yaasiin Farey oo hadda ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. soo jeedinta golaha xukuumadda ee xilgaarsiinta inay magacaabaan Mahad Salaad ayaa sugaysa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ansixiyo waxa la filayaa inuu isla maanta uu ansixiyo. waxa si weyn la isu weydiinayaa sababta keentay in la dedejiyo magacaabidan iyadoo xukuumadda si rasmi ah loo dhisin weli. madaxweyne Xasan ayaa magacaabidda u la hadda sameeyay aysan soo dhaafin ayaa la leeyahay saaxiibadiisii kooxdii oo liis doorashada ka qayb qaadatay. agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Enisa Mahad Maxamed Salaad ayaa luminaya xubinimada xildhibaan ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad maadaama uu noqday agaasimaha cusub ee hay'adda Enisa.